walaasheedii dhageyso quruxda dumarka ma ahan dharka ay xirato jismiga ay xambaarsan tahay waxa ay dhabankeeda ku dhaashato iyo habka ay tinta u shaleysato quruxda dumarka waa inay ka muuqataa gudaha indhaheeda sababtoo ah taasi waa iridka qalbigeeda quruxda dumarka ma ahan bar ama dhibic madow oo dhabankeeda ku taal qayb jirkeeda kamid ah oo la baneeyo balse quruxda dhabta ahi ee dumarka waxay ku jirtaa ruuxdeeda waa daryeelka ay si kalgacal leh u siiso lawrsanaanta ay ku dhiganaato dadnimada ay muujiso iyo asturnaanta jirkeeda jirka oo qayb kamid ah la qaawiya marnaba ma ahan qurux mana soo jiidanayso qofka rasmiga ah balse waxay soo jiidanaysaa qof si ku meel gaar ah ku rabooday kadibna ka dhaqaajiye feeriyahankii maxamed cali kalaay allah u naxariistay asagoo gabadhiisa la dardaarmay wuxuu ku yiri gabadheedii wax kasto adduunkan qiimo sare leh allah subhanahu wa ta'ala wuu daboolay way xifdisan yihiin si adagna baa loo helaa bal isweydii xagee laga helaa dheemanka gunta hoose ee dhulka waa la daboolay waana la ilaaliyay xagee laga helaa dahabka godad dushooda lagu daboolay la kabyo isa saaran oo dhagaxaan ah xageesa laga helaa lulka gunta hoose halka ugu dambeeso ee badda ayadoo lagu daboolay laguna xafidiyay dahaar aad u qurux badan haddaba gabdhuhu waa inay ogaadaan in jirkooda karaamaysan yahay kana qiimo badan yahay dheemanka iyo lulkaba sidaa darteed waa inay xifdiyaan oo asturaan gabadha muslimada ah marnaba ma ahan inay u qaadato inay wax ku weynayso ama wax kalumayaan hadii ay xijaabato xasuusno walaasheedii qoraxduba ma weydo quruxdeeda goortii ay daruuraha daboolaan sidoo kale quruxdaada ma weynaysid goortii aad xijaaban tahay